xildhibaan Cabdixakiin Cumar Faarax Budeeye oo ka tirsan golaha guurtida Somaliland oo maanta si gaar ah u la hadlayay telefishinka caalamiga ee Somali News ayaa si adag uga hadlay lacaga faalisa oo la sheegay in maamulka Puntland uu soo galiyay magaalada Laascaanood iyo Buuhoodle. xildhibaanka ayaa sheegay in maamulka Puntland uu soo galiyay magaalada Laascaanood iyo Buuhoodle lacaga faalisa isla markaana ay sababtay in sixir barar aad u baahsani uu soo waajaho dadyoga ku nool goboladaasi. xildhibaanka ayaa xukuumadda Somaliland ugu baaqay in ay wax ka qabato sixir bararka ka taagan magaalada Laascaanood iyo Buuhoodle. sidoo kale xildhibaanka ayaa ugu baaqay saddexda xisbi ee ku tartan kursiga madaxtinimo ee dalka in ay wax ka qabtaan isla markaana ay ololaha ku darsadaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen sixir bararka aafeeyay goboladaasi. dhanka kale xildhibaan Cabdixakiin Cumar Faarax Budeeye ayaa xukuumadda Somaliland ugu baaqay in goboladaasi la gaarsiiyo lacagta shilinka Somaliland, wuxuuna sheegay in goboladaas ay dib aad u weyn ku hayso maamulka Puntland isla markaana ay soo galiso lacaga faalisa. xildhibaanka arrimahaasi ka hadlaya wuxuu yiri sidan: asatadii lagu dhacay iyo dadkii dayarka labadaba lagu dhacay oo ninkii haystay $100,000 maanta uu san dabka shidan karayn waxa keenay waxa weeye maamulka Puntland oo gobolada wuxuu taradaayo waxa ku sii haray lacagtiisii faasaa hadda ku dhacay dadkii oo dayarkii ay iyo ganacsatadii maanta ay ka wada sameeyeen Laascaanood iyo Buuhoodle labada gobol dhibaato aad u xun bahaysa. lambarkooda waxa ka lacagta waxa aan leeyahay marka horeysa xukuumadda Somaliland siyaasadda cad kale oo lacagta bedel ba ku soo dhaw in la bedelo oo wax meesha yaala ma jeedadka ganacsatada lacagta laga qaadayo dowladkooda intii la shubtay ayaa lacag faasaa loogu bedelay. waxa xukuumadda ugu baaqaya Somaliland in dadkaas lacagta ka bedesho marka horeysa waayo gobolka Burca laga bedelay Sool iyo Buuhoodle lacagta waa laga bedeli karaa. xukuumaddu siyaasadda cad kale ee arintaas ayaan ogayaan oo kulli lacagta laga bedeli doono dadkii dayarka ahaa iyo waxa weeye imika ninkii $100 haystay iyo ninkii $100,000 haystay taasoo ma lacagta laga qaaday dabka lama shito si laga wareeyo hadeeto dadku way isku dhex wareegayaan aafadii abaaraha iyo aafadii xanuunada waxa kaga daran marka lagu baxdo lagu kala ku furanayso way taxaan waxaniye maanta waxa kaga sii dartay arintaas lacagtaasi dadkii way saameysay dee waxa weeye wax alla wixii la isticmaalayay hadday faasa noqdeen wadalkii dollarkii laga xareeyay lacag faasa suuqa suuqyada yaacayso oo ganacsatada lagu dhacay oo dayarsi lagu dhacay dee waxaan leenahay dadkaas gurmad bay u baahan yihiin waa aafooyinka ka jira dalkii maanta oo waliba iyadoo arintaas jirto ayaa maanta ololayaal laga wadaa iyadoo arintaas jirto ayaa waxa loo tagayaa saacadii walba loo tagayaa olol dadkaas iyo cod loo dooranaya. xukuumadda Somaliland waxaan baaq u dirnaa horta marka horeysa dadkii wax ka qabato lacagta ka bedeshay taasaa munaasib oo laga daayay dadkan dab mashitaane maxay dadkii dayartaa dab shidan ninkii ganacsadaha dadka wax ka iibinayaan maanta aan waxba haysan marka dadkan uma baahna in la dhaxmo oo maanta codna laga raadiyo ninka codla maanta ka raadiyo oo la ka raadinaya waa inuu waxa ka bedelaa maanta horta codka ninka gobolada bari maanta ka raba waa inuu ka bedelaa lacagta faasada ee ku wareegaysa ee maamulka Puntland si waliba nin kaliya xisbi ku jira oo ka hadlay arinta mana asxaabtu iyadoo ka hadlaysa arintaas oo xitaa ololahooda ku darsanaysa arintaas wax ka qabanayna maanaan maqal oo media kama naan daawan xukuumadna iyadoo ka hadlaysa media kama naan daawan xukuumadda Somaliland waxa lagu baaqayaa asxaabtada in lacagta gobolada bari haysata Buuhoodle iyo Laascaanood iyo qayb kamid ah haysata faasada ee ummadda imika meel cid u maqan Ilaahay mooyaane aan jirin in arinta wax laga qabto oo arintani waxa weeye dadkii dayarka waxa aan haysan waxay maanta waxba haysan oo ninkii ganacsadaha maanta waxba haysan oo way isku dhex wareegayaan sidii shinni boqorkii laga qabtay ay ummadii qaaqada wada haysaa oo xal wala garan leeyahay bade ninka jawaana guriga ugu xareysan lacagtiisa doorkana waa la qaatay ganacsada lacagtiisa waa la qaatay sarifka ninkii haystay lacagtiisa waa la qaatay meel allaale meel u baxo cid waxa uga miciintana ma hayo dad baana sheeganayo ku tusanaya haday xukuumad tahay iyo haday wax kale tahay dad baale meeshaas oo ka soo jeednaa waxaan ugu baaqayaa xukuumadda Somaliland iyo wixii danaynaya bay aqal meeshan arinta in laga hawlgalo waa masuubo jirta oo ka dhacday gobolka Sool iyo Buuhoodle iyo aageysaba ka dhacday oo jirto weey baaqdheer mid gacan buu waxaan ku darayaa dadkaas gurmad buu baahan yihiin abaaru gurmad bay lahaayeen xanuunku gurmad buu lahaa
وبلين بقول كل شيء لو هيستي ديود أنا يمكن استعماله دولار دك بس استعماله دولار لا استعمال ماي تذكر أنت دولار ما أنت استوى ويرت يا أنت لوصل درنا ويرت تذكر حكوري جنا عصت حكوري إن بخاري راه يستار إن مقاعش ضنايا نوحي سيورد شيء إن دابع يروتني عارق يسي رنايا وحين وحلاقي قال فلسو وحمانته وشقين يدد كاس متيران وحاول يا ساعات ما كان ميل مرة بنت كده وستة كده يو ولا أنت على جهل وحكومة الباقي لو على جهل الله ولا بدلك على عتني صحيح برك واحد نقول عم بكمل هاي ليش قولنا أنت ترك سؤال صحيح برك هايستو برك صحيح برك يسيزقوا حنو قذ فلسو يا ثالثة كل قدع أنت سووا سوتشي لها وحان ليها أرنتاسي دق waxaa lagu qabto si degdeg waxaa lagu qabto Puntland waxtarkeedii waa la ogaadayo waxa weeye dadka meesha ka joogay ka soo jeedaan iyagoo ka hadlay maanan maqal yaa nin kasta meesha sunniin la ku yahay waxaan leenahay dadkiina waa babaqtiyeen dhibaatada ka daayay dadka leeyahay annaka sheeganayno dadkii dadkaygu way lacagta faasiad kula wareegayseen nin kasta hooyadii aabi waxa shitamaayso oo jooga meeshaas yaa way baqtiyeen dadkaagi nin kaliya uu mid lama hayo nin kaliya uga hadlayna lama arag waxaan leenahay Puntland tibin daabiyada ay ku hayso buuhoole iyo sool akadayso oo lacagta faasada ay xareysatay doolarkeedna ay xareysatay faasada ay ku soo deysay dadka akadayso ya dadka akadayso hadii ay ka daweydo waxa weeye talaabo sharci wasfa laga qaaday ya xukuumadda Soomaaliland talaabo siyaasad baad bay lacagta kale Cabdiqani Cabdullaahi Somali News TV Hargeysa